asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. sida fideoga aad ku soo aragtay waan ogahay wax badan baa kaa dhex guuxaya. waxaadna isweydiinaysaa maadaama aad soomaali tahay laga yaabo inaad soomaaliya ku nooshahay, milyoneerkan maanta intuu ka socdaa kooj kasta yuu la hadlayaa, asagase muxuu haystaa intuusan aniga iwaaninin. waan ku dareemi karaa, laakiin adiga ayaan kula hadlayaa. marka hore ereyga milyoneerka marka aad maqasho maskaxdaada ka soo celi in ay kugu qanciso marxaladda aad hadda ku jirto. taa laguma qiimayn karo beri iyo halka aad tegi doonto. su-aashaanna isweydii, qofka milyoneerka ah sidee u nool yahay, muxuuse qabtaa? aniga milyoneer maahi, laakiin waan aaminsanahay 10 sano ee soo socota inaan ku talaabsanayo. sababtana waan kuu sheegayaa. haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu leeyahay wasaabiquu ilaa makfiratin min rabbikum wa jannatin carduhaa كعرض السماء. Do you think wax jano ka qaalisan uu qof u shaqaysto in dunida ay jirto iyo jano balaceeda la eg yahay dhulka iyo cirka? dabcan su-aashaas marka la isweydiiyo. ugu horeen dadka milyoneerada uma noola sida aad adiga u nooshahay ee nolosha rakhiiska ah, bal way ka nolol adag yihiin dhanka disciplineka. tiktokna kuma dhafraan. qaarkood in 4 subaxnimo ay soo kacaan ayaa dhab ah. ka waran adiga oo subax walba 4 soo kaca, sabiro danahaga adduunkana ku foofa. haddii aad content creator tahay, ama aad jaamacad aado, ama aad buug cusub qorayso, wax walba aad hadda ku howlan tahay, kadibna 6am markii ay dadka soo kacayaan already howlahaaga barbar dhameeyey, sidee noloshaada isku bedeli lahayd? isweydii bal su-aashaas. waxaa jirta nolol khayaali ah oo inta badan social media lagu soo gudbiyo, dadka fuqarada ahna lagu lugooyo, sida subaxii marka aad soo kacdo intaadan waxba samaynin, qoraxda ku soo soco, stretching samey, naftaada bar erayo ku celceli positive ah, miraayada hor istaag, waxaa dhahdaa waxaad tahay qof taajir ah, waxaad tahay qof wanaagsan, wax walbaa qaban kartaa. habeenkii hurdada ka horna buug akhri. yes, buug akhrinta waa wax wanaagsan, laakiin videoga qaybtiisa dambe ayaan uga hadli doonaa sida saxda ah ee buugga loo akhriyo. haddii aad intaa ila soo gaartay, please waxaan kaa codsanayaa videoga like saar. haddaad nagu cusub tahayna channelka kusoo biir. shukran. nolosha saxda ah ee lagu hormaro waa tan subaxii waaga marka uu kuu baryo, teelkaaga intaad meel iska dhigto, kombiyuutarkaaga la hor fadhiisto ama buugaagtaada. shaqada aad qabanaysana raaxada laga dhex raadiyo. waaga marka uu noo baryo, inta badan waxaan isku qancinaa in howlaha adag aan dhammaystiri karno maalinka dhexdiisa. jiimkana waxaan ka dhiganay meel aan risqi u raadino. dabcan beryahan waxaa aad u soo badanaya dhallinyarada in ay fitnesska, jirdhiska aad iskugu mashquulinayaan, laakiin wax badan baa qaldan. marka hore shiid adiga oo ah, maxaa jiimka aadaysaa? su-aashan waa muhiim inaad naftaada weydiiso. yes, aniga oo coach ahna waan kugu dhahayaa, orod garoomada friiga ah ku orod, 100 xabo buush abba maalintii iska sameey, exercise caloosha ah sameey, horeyna uga soco. isku day maalinkii xitaa dollar inaad soo xarayso. waxyaabaha kaa yaabinaya xaqiiqdii ayay ka mid tahay maanta in dhallinyarada jiimamka ay soo buux dhaafiyaan in ka badan saacadna ay ku dhaqaataan. wax ka bedel noloshaas haddii aad ku jirto. talabaad, exercise garay. yes, exercise garay. jirkaaga quruxdiisa iyo ka taxadirka caafimaadkaaga dad badan ayuu kalsoonidaada ka bedelayaa, rag iyo dumarba. haddii ay ahaan lahayd physical iyo haddii ay gudaha ahaan lahaydba. hadda tusaale, goolkaaga waa inaad noqotaa dhakhtar ama shakhsi entrepreneur ah. labadan qofood ee ku hor taagan, midna waa dhakhtar buuran oo calool weyn, midna waa nin dhakhtar oo dhallinyaro ah oo dhisan. keebaad jeclaan lahayd inaad u egaato? si fiican u fiiri. sidoo kale ku dul fikir, jirkaaga ugu waa waxa keliya ee ka qayb qaadan kara goolaha nolosha aad ka gaarayso. caafimaadkiisana adigaa lagu raaciyey. tan saddexaad, milyondeertan aad arkaysid waxay dadka dheer yihiin, waxbay akhriyaan. keliya ma akhriyaane wayna bartaan. buugga aad akhrinayso markaaad wax ka qorayso wuu ka duwan yahay marka aad internal yar oo qurxoon aad shidato kadibna aad buug ku dhex akhriso. midda kale, aqoonta keliya ma ahan tan iskuulada taala. wax akhrisku wuxuu ka mid yahay aqoonta maanta dad badan ay ku horumareen. tusaale, fideoyadan aan hadda idiin soo gudbiyey qaarkood buugag aan akhriyo fikradihii iga soo gaaray ayay ka yimaadeen. wax akhri mar walbo, waxna ka qor waxa aad akhrinayso. 4, noloshaada balaan gareey. qof aanan garanaynin waxa uu rabo, halka uu u socdo, meel ma gaarayo. taa aniga iga qor. wax badan ayaad maqashaa, gool yeelo, sanadkaaga sii diyaari, asbuucaaga qorsheey. goolka maahan intaad warqad soo qaadato wax uun aadan awoodaynin aad ku xarxariiqdo, hadhow aad dhahdo ma awoodo. dabcan sheygu hadduu kugu tira bato, yes, ma awoodaysid. hal shay naftaada ku khasab sanad walbo, wax uun xaqiiji. waxaa multitasking la dhaho iska ilaali. awooddaada ugow ma xadidno. ilaahi subxaanahu wa tacaala awood weyn buu ku siiyey, laakiin way sahlan tahay qofku inuu distraction galo. maskaxdana uma samaysna inay 10 shay hal mar qabato. sanadkan ha noqdo sanadkii aad jirkaaga ka shaqaan lahayd, sidoo kaleetana wax uun shaqo
shaqo oo aad khutulyoonka ku raadsato aad ku raadin lahayd sanadka kalena baro hal business oo side hustle ah adoo shaqadaada kala qabsanayo oo hadhowti income-kaaga aad ku xoojiso baro forex-ka crypto-ga video editing-ka content creation-ka sales and marketing-ka adduunka maanta waxaa buuxo waxyaabo badan oo aad si online ah amaba YouTube free aad uga raadsan karayso qodobka shanaadna ahna kan ugu dambeeya xiriirkaaga hagaaji khaasatan midka aad dadka kale leedahay kun jeer ayay dhegtaada ku soo dhacdaa your network is your net worth muhiim maahan how much money you have laakiin waxaa mar walba muhiim ah how many people you know dabcan dadka aad adigu taqaanid way ka muhiimsan yihiin mar walba inta qiime ee qarash adu bangigaaga ku jiro wax badanna way ka bedelaysaa insha Allah taala noloshaada isku day inaad dadka wanaagsanna aad barato walaalka ku sabriya assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh